waxaan oo wanaagsan aqyaarta wadaan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeya cid walba muuqaalka la gareyso waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa umuure leedahay ilaahay inuu u sahlo fadliga jimcada inuu ilaahay awlaado u barakeeyo inta awlaadoonkaana ilaahay awlaad badan oo baari ha siiyo qof walba oo muraad ku leeyahay ilaahay u sahlo qof walba oo leegta ku qabta waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa dambigiisa dambiga waalidkiisa ilaahay inuu dhaafo ilaahay subhanahu wa ta'ala ana uu galiyo aakhiro jannatul firdaws al-a'la xaasidka waxaan leenahay wa min sharri xaasidin idha حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحاكود بينه هوك يقصاره معايا لي حاسد كفائدة مالها ربي سبحانه وتعالى أنا حاسد كمجعله وحنكورة جيلنا إن شاء الله هوك دقدقة بإذن الله الكريم وقول قاعد كدر انت اسكده حاسد لماذا لا يقتل عقمه كوكا ولا يقتل وقالك waxaan eegi doonaa sargaal sare oo ka tirsan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab madaxiisana la duldhig hore Mareykanka ay u duldhigeen lacag dhan 3 milyan oo dollarka Mareykanka oo lagu dilay Soomaaliya hadaba warbixintaasi ayaan faahfaahin doonaa hadduu Allah awood leh raali uu ka noqdo haddaad nagu cusub tahay kusoo biir janankeena sidaad u heshid sirarta iyo xoogtii ugu dambeysay ee Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale oo fura gambaleelka haddaad saaxiib nala tahayna waad ku maadsan tahay saaxiibtinimadaada dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ah urur ka dagaalama Soomaaliya iyo dalal Geeska Afrika ayaa dagaal xoogan kula jira dawladda Soomaaliya iyo waliba kumanaan ka tirsan askarta nabad ilaalinta ee ku sugan Soomaaliya kuwaas oo loo bixiyay ama la yiraahdo ciidamada midowga Afrika ee AMISOM waxayna taageero ay ka helaan ciidamadaasi midowga Afrika midowga Yurub iyo waliba Mareykanka al-shabaab ayaa waxa ay ka dagaalamaan Soomaaliya iyo waliba dalalka Geeska Afrika sida Kenya iyo dalal kale waxaana si weyn ay ugu xooggan yihiin deegaanada koonfurta Soomaaliya ayagoo sidoo kale halkaasi ka geysta dilal bartilmaameedya oo ay ku beegsadaan dadka ay ku tuumaan in ay la shaqeeyaan dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale weeraro ay ku qaadaan fadhiisinka ciidamada dawladda iyo kuwa midowga Afrika ay ku leeyihiin Soomaaliya waxaana ayaga sidoo kale la beegsadaa weeraro noocaas oo kale ah ayadoona diyaaradaha Mareykanka ee dolanka loo yaqaan bartilmaameed toos ah ay u geystaan hogaamiyaasha sarsare ee al-shabaab taas oo keentay in hogaamiyaal badan oo ka tirsan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab in la dilo waxaana kamid ah hogaamiyaashii muhiimka ah ee ka tirsanaa al-shabaab ee la dilay macallim aadan xaashi ceerow sheekh mukhtaar cabdiraxmaan abu zubeer hogaamiyihii al-shabaab iyo waliba kuwa kale oo aad u tiro badan qaarkoodna madaxooda la duldhigay lacago waxaana kuwaasi kamid ah Saalax Ali Saalax Nabhaan oo ka soo jeeday qaaradda Afrika iyo sidoo kale Suudaani nin lagu magacaabo ka tirsanaa hogaamiyaasha ajaanibta al-shabaab iyo shakhsiyaad kale oo aad u tiro badan waxaana sidoo kale ninkii ugu muhiimsanaa al-qaa'idada Geeska Afrika oo lagu magacaabi jiray Fasuul Abdallah ay dileen waxa dilay ciidamada xoogga dalka xilli uu marayay aagaarka isgoyska Ex Control Afgooye laakiin sheekada cajiibka ah waxay tahay sargaal sare oo ka tirsanaa al-shabaab isla markaana madaxiisa la duldhigay lacag dhan 3 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa waxa Mareykanka uu ku dilay dhawaan deegaanka Jubbooyinka xilli ay la socotay haweeneydiisa ama xaaskiisa bahyarta waxaana la sheegay asiga iyo xaaskiisa in kantaal ay ku dhufteen diyaaradaha Mareykanka ee aan duuliyaha wadin hadaba waa kuma sargaalkaasi waa Xuseen waa Bashiir Qorgaab ama Mustaf Qorgaab oo ka tirsanaa hogaamiyaasha sarsare ee al-shabaab Master Mustaf Qorgaab ama Bashiir Qorgaab wuxuu ka tirsanaa golaha fulinta al-shabaab iyo sidoo kale golaha shuurada ama golaha dhexe ee shuurada ee dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab wuxuuna Master Qorgaab uu ka soo qabtay al-shabaab xilal kala duwan sida taliyaha guud ee ciidamada dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab madaxa qaraxyada ee dagaalyahanada al-shabaab madaxa hoobiyaasha ama kuutada hoobiyaasha rida ee dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana ninkan la sheegay Qorgaab inuu qabiir ku ahaa sameynta waxyaabaha qarxa oo sida la sheegay uu ku ahaa macallin weyn waana ninka farsameyn jiray waxyaabaha qarxa ee loo adeegsado ismiidaaminta Master Bashiir Qorgaab oo sidoo kale loo yaqaan Mustaf Qorgaab Xuseen Qorgaab iyo magacyo kale ayaa waxa uu caan ku yahay Master Qorgaab ama Qorgaab waana amiir sare oo ka tirsanaa dagaalyahanada al-shabaab reer ahaan wuxuu ka soo jeedaa beesha Murusade deegaan ahaanna wuxuu ka soo jeedaa degmada Ceelbuur Qorgaab waxa madaxiisa sirdoonka Mareykanka ay duldhigeen lacag dhan 3 milyan oo dollarka Mareykanka cidii soo sheegta macluumaadkiisa waxaase la sheegay in hadda lagu dilay deegaanka Saakow ama degmada Saakow ee Jubbooyinka kadib markii kantaal ay ku dhufteen sirdoonka Mareykanka gaar ahaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee droonka waxaana sidoo kale il wareedada muhiimka aan helay xaqiijinayaan xilligii la dilayay inuu ka soo baxay dhanka jilib isla markaana
aan raay xilligii la dilayay wuxuu ka soo baxay degmada Saako wuxuuna ku sii jeeday dhanka Jirib waxaana la sheegay in gudaha Saako intuusan ka bixin kontaroolka Saako kantaal lagu dhuftay gaarigii uu watay waxaana halkaasi uu ku geeriyooday Master Bashiir Qorgaab iyo sidoo kale xaaskiisa bahyarta ee la socotay Mareykanka ayaa ilaa iyo hadda aan ka hadlin dilkii loo geystay Bashiir Qorgaab iyo sidoo kale xaaskiisa waxaana Bashiir Qorgaab uu ku jiray xubnaha ugu muhiimsan ee dagaalyahanada Al-Shabaab ee lacagta malaayiinka la duldhigay lamana oga qaabka informationkiisa lagu helay iyo waliba cidda ku guuleysatay lacagta 3 malyan ee hore Mareykanka oo u duldhigay Bashiir Qorgaab waxaana dilka Master Qorgaab uu imaanaya xilli dhawaan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA boggeeda Twitterka ay ku daabacday in Bashiir Qorgaab iyo sidoo kale ku-xigeenka amiirka Al-Shabaab ahna madaxa amniyaadka Al-Shabaab Mahad Karkata ee isku dhaceen Abu Ubayda hogaamiyaha Al-Shabaab kadib markii labadan shakhsi ay ka soo jeedeen koonfurta Soomaaliya heeb ahaan ka soo jeeda Beeshaawiye waa Mahad Karkata iyo Qorgaab ay diideen in la dilo dadka shacabka ah lana kuna baaqeen in la joojiyo qaraxyada tooska ee lala beegsanayo goobaha shacabka waa sida ay ku qortay barta Twitterka ee cadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA waxaana la sheegay in taas ay keentay in golihii fulinta laga saaro Qorgaab iyo Mahad Karkata laakiin hadda waxaa soo baxaya wararka sheegaya Qorgaab in lala helay kantaal oo Mareykanka ay ku dhufteen kantaal xilli deegaamada Saako uu ku sugnaa kontaroolkeeda hadda wixii wararkan ku soo kordha ee ku aadan dilka Qorgaab oo kamid ah saraakiisha ugu muhiimsan ee dagaalyahanada Al-Shabaab madaxiisana la duldhigay hore Mareykanka ay u duldhigeen lacagta 3 malyan ah wixii ku soo kordha waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socdo hadduu Allah awood leh uu saamaxo waxaana dagaalyahanada Al-Shabaab dhawaan ee war ay soo saareen ay ku sheegeen ama murtiyada ay soo saareen ay ku sheegeen duqeymaha Mareykanka uu geysto boqolkiiba 82 in lagu dilo dad shacab ah Al-Shabaab ilaa iyo hadda maysan ka hadlin dilka Bashiir Qorgaab iyo sidoo kale qaabka dilkiisa uu dhacay ayadana Mareykanka aysan wali war ka soo saarin qaabka ay u dishay Bashiir Qorgaab laakiin waxa laga yaabaa saacadaha soo socda in dawladda Mareykanka ay ka hadasho dilka Saako lagu geystay hogaamiye sare oo ka tirsanaa Al-Shabaab kana mid ah golaha fulinta iyo shuurada oo xubin muhiimna ka ah Al-Shabaab Master Bashiir Qorgaab sidaan barnaamijkan idinku soo sheegnay Al-Shabaab waxay la kulmaan duqeymo joogto ah oo ay kala kulmaan FBI-da Mareykanka ayadana sidoo kale duqeymahaasi Al-Shabaab ay sheegeen in muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn loo duqeynayay deegaanada ay maamulaan walow dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee Xuseen in duqeymahaasi lagu dilo dad u badan beeraley Mareykankana uu beegsado dadka shacabka ah eedeentaasina Mareykanka muusan ka jawaabin ay soo jeediyeen dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee ku aadan in Mareykanka diyaaradahooda ay beegsadaan boqolkiiba 82 dadka shacabka ay ku dhaqan deegaanada koonfureed ee maamulaan dagaalyahanada Al-Shabaab dhamaantiin Ilaahay idin xifdiyo Ilaahay umuuraha alladina as'alu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umur almuslimina kullaha sahla rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القاسرين إلهي وفضلك جمعنا دمانتين بأمورها لنا إلهي ونسأل إلهي ودمانتين بأولادي إنو حفظي إلهي وإنت أولاد دونك إلهي أولاد باري عسي إلهي وقرن مدي صومالي يدبو سوحيلي إلهي ومدى صومالي تقرقار إلهي وقوة حنوصا ومدى كمدى إلهي وحنونك كدلقاد يا الله إلهي وعن كابرينا إلهي وصومالي علايسك النباتات يولي فرقلين تلوهي إلهي وكدلقاد ومدى الصوماليات إلهي ومدى الصومالي إلهي وكدلقاد إلهي وقوة حبسيدة كجر إلهي وحبسيدة كسوصار إلهي وقوة باهن إلهي ورزاقات واسعة سي يا الله إلهي ورزاقات واسعة سي إلهي ونكسر وحان كقوة دي سنة قرقار كالمضى هذه نحريست هذا وحان كمان قلنا عذرة الدون كسعودة إيه فافا إلهي ودان كمان قلنا يا الله إلهي ودان كمان قلنا الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ مصور له الأسماء الحسنى إلهي ودنبقني دنبق والدين تنم إله الناب إلهي والدين تنم نحريسه إلهي أنت النور إله نحريس هذا الدنيا سي إلهي أنت نمته والدين تنا كاملة إلهي جنة الفردوس الأعلى إله وجودك إلهي لما أنت بفرج غير قوي إله النوفر إلهي وفرج غير قوي النوفر ونحريس هذا الدنيا يمد آخر يا الله إله النصي إلهي وذن كلمك ودي سرنا إلهي وذن كعبدنا
وكلمان كودي سننا إياك نعبد وإياك نستعين يا الله إله نون حريصه أو إله نون حريصه إله يضدك نباتي سن نباتي كدلقات أو إله يو صومالي كدك تذكر إله ضد قوي أو له وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي وذن كلمة هذه قرقر كان كود سننا